nin la yiraahdo Mahad Yuusuf Mooge ayaa silsiladii lixaad ayaa maasadii lixaad ku soo galay maasadan waxa la yiraahdaa Tiirsan tiirsanna marka tiirsan iyadu ujeedada waxa markaan ka hadlayaa isagu dadkanba uu ka aragti duwan yahay waxaanu markaa leeyahay xariir waxanba shacabkaas kugu wacan waxanba shacabka ayaa iskugu wacan oo hadii siyaasigii baa kala jarjaray hadii qabyaaladani waxaan ay ka baxaan oo dantooda u soo wada jeedsadaan cidana sidan uma garteen buu leeyahay wuxuu leeyahay markaa dayib buu ku bilaabay wuxuu dayibkii tusmeeyay maskaxdiisa tuujiya tabiyaha wanaag iyo turjubaanka nolosha iyo fanka toosintiisa iyo toolmoonayaasho salaan muumin tabin karo tii ugu sarreysiya salaan muumin tabin karo tii ugu sarreysiya tudciyada quraankan toos idinku soo diray saaxiib tiraabti iyo maqlay tudciyadiino tixdii haatufiyeen warka toosna leysii tu aan diida kuma arag ama aan idhaa tuur taariikhda yay gelin wuxuu uunku taabtaa ama toos u sheegaa tabashada xasuusta leh ama tiir qalloocdee taladii muhiimi iyo toosin lagama maarmee waa tiirkii noloshoo dadku kama tagaaye toogan ayn ku noolnahay inay tacab la-aan tahay maamul aan wax tarin iyo been lagu tiraabiyo sharci laga tallaabiyo kii taag darnaa iyo danyar loo tuulayn oon lagu taagsanayo iyo tuqallooci badan tahay kama taagnadoodiye taana idin furay toogan aynu joognana waxay tiirsan leedahay dulmigaa tisqaado dadnimadii tasawdo waxaa loo tartamayaa taabka buuxsa maanta iyo nibatiisa weeyaan laba taarikooliyo u tashada siyaasigu inay tooda filiyaan tiska waxaa la qaadaa markuu xoogu taamiyo oo isku tiirsanaantay dadku tamar ku yeeshaan inuu shicibkii kala tegay midnimadii tasawdo qoloqola tisqaadoo tawfiiqda dhacantoo isku tooqayaanoo tafaraaruq kala galay wax la kala tirsanayo arrinkuna ku yimid taa innimadan tahriibee geeridu ku timiye badda lagu dhex tuuree meydkoodu tooxsamay tuducyada ku sheegteen inuu naarta uga tudho togagii fardowsiiyo jannadiisa taamkaa toos u geeyo eebbihu aniguna tabtiinna tiiraanyadoodna wadnaa dhiigga tabiyiya sanbabaday ku taallaa ehelkaa tabaayana tacsi baan u dirayaa kuwa taagan saakee tooriyaha qaatee iska nacay tacliintana waa inaan u talinno inta laysku wada tago toos ha looga howlgalo waxay tiirsan leedahay takale inoo taal dadkan yaalla tooygee qoloqolada taabacay inaan toosinaayo tubta guushu taaliyo samaa lagula taliyaa siduu ugu tallaabsado halkaa waxaa iyaduna inoogu soo gabagabowday maansadii lixaad ee silsiladii taaley kolley waxaan ka cudur daaranayaa yar xabeeb oon dhegeystayaasha leeyahay halkaa laga yar dulqaato mid kalena waxaan iyagana ku wargelinayaa baxda hal abuurka markaa waxaa loo baahan yahay inay la soo xidhiidhaan cidda markan gacanta ku haysa ee shabakadda ay ka baxayso silsiladani dhegaystayaal waxaa hal abuurka Soomaalidu meel kasta oo uu adduunkan guudkiisa ka joogaba lagu wargelinayaa shuruudaha silsiladda taaley oo loo baahan yahay qofka uu damac ka galo inuu silsiladan ka qayb qaato annagoo soo dhaweynayna aadna ugu hanweyn inuu qofku fikirkiisa iyo aragtidiisa iyo mabdi'iisa uu dhiibto waxaa loo baahan yahay inuu buuxiyo shuruudahan waxaa inaga reeban cayda qabyaaladda cid gaara oo la ataago ama la magacaabo sida magaalo deegaan iyo cid gaara oo farta lagu fiiqayo ama la magac dhabayo shuruudda kale ee iyaduna looga baahan yahay hal abuurka waa mawduuca laga hadlayo oo aanu qofku ka bixin waxaa kaloo iyaduna shuruudaha ka mid ah inaan xarafka maansadu ay silsiladu ka kooban tahay oo xarafka ah taada inaanu qofku ka bixin waan idin soo dhaweynaynaa hal abuurka Soomaaliyeed adduunka meel kasta oo uu ka joogo inuu ka soo qayb qaato oo uu fikirkiisa iyo rayigiisa ka soo dhiibto waxaan iyaduna halkan uga mahadnaqaynaa dhammaan warbaahinta dalka kuwa maxalliga